waftigii golayaasha qaranka ee ku sugnaa magaalada Sland ayaa maanta furay koob loogu magac daray nabadda iyo horumarka sidoo kalena waxay agab ciyaareed ku wareejiyeen kooxaha ka dhisan magaalada Sland ee kubadda cagta agabkan ciyaaraha oo ugu deeqay Awil Nuur Cabdilaahi in cawl ganacsatada ku dhaqan magaalada Hargeysa ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay sujuudaha wasaaradda ciyaaraha iyo waliba xildhibaan Degdeg oo labadoodu ku bagaadiyay cid kastoo gacan ka geysatay sportska أولاً الله سبحانه وتعالى أيام ما هذا دمان وسقناتي مركز حكتا قدوم يوان وقدوني هذه يوفتي هذا هو قامنا سيرنتي ده يلا وقت هذا اللي قلت شرو حدنا قرطي مهمية ده عيدا يراد قبل كليهين ما أنت واحد مرخاتي كا غير صور دن يو ديجانا دي نوردن مدحدي نهار قرن إلا قرها وكيلada madaxdiina ugu jirtay wasiiradeeni inay halkan goobjoog u yihiin waxaan filayaa in ay tan marxaati tahay aysan u baahnayn maanta in hadal badan laga jeediyo waxaanu ballan qaadanaa ka wasaarad ahaan iyo dhalinyarada gobolka runtii inaan marka koowaad amniga laga shaqayn doono danaheena aynu wada ilaashan doono waxa weeye dhalinyarada waan wada hadalay jaamiciin bay leeyihiin laba arrimood bay naga hadleen in wasiirka aad noo xil saarteen mid waa garoonka iyo qurxintiisa wasiirka hawlaha guud wuxuu sheegay inuu budgetkii hayo maanta uu inaga maqan yahay garoonka loo sameeyay tarabuunadii sanadkan lagu qaban doono koobkii gobolada bari oo dhan dhalinyaradu aad bay uga heshay meeshii ay dhibaatada ay ka jirtay bay ahayd ee ay lahaayeen tarabuunadii loo sameeyay deyrarka dib hana looga durkiyo dhagxanta xagga hore taalaha laga guro wixii oo dhan wasiirkii ku shaqada lahaa way hortaageen dhalinyaradii maanta intaba uu sheegay si fiican bay ugu ballan qaadeen qodobka labaad wuxuu ahaa wixii jaamacadaha ka baxay shaqala in aynu shaqo gelino tiina waan uga jawaabnay waxaan u sheegnay in budgetka ay ku jirto alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan maanta joognaa garoonkii caalamiga ah Cabdi Bilaa Cabdi وحالكين لا جوجا قدوميها برلمانكا باشا محمد فارح وزيرك وزارة وحبرشادية ساينسكا ياسين محمود حسين وزيرك وزارة خيرات كبيها سلامة يوسف على كورة حلمانا كتصل لبضة قولة مامولك قولك تلياش عيدا ماذا وحمان تفرح وينوها إن هالكن لو قبطو ترتل شبرا كيسن رمضان كسو عندونا قرون كان عبد بلي tartankaas waan ugu mahad celinayno aad iyo aad ugu bogaadinayno inay soo qaban qaabiyeen Awil Cawl iyo xildhibaan Cabdilqaadir Maxamed Xasan Indho gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayrid iyo waliba xildhibaan Maxamed Jaamac Mooris oo kamid ah golaha wakiilada Jumhuriyadda Soomaaliland ayaa iyaguna ka hadlay munaasabadaasi agabka sportis lagu gudoonsiinayay marka ugu horeysa in dhalinyaradu saddex gasho cid kasta soo qaban qaabisay oo ganacsadaha magaciisa la sheegay مصر عول يحلبان عبد القادر آدي أبي يقوم هسيهين وحلنا ماشى كسر صارتين وحغير قبالة هيدي كبدلو مركل بعض وحنو توصلنا قبلهان يجوديهان هير قرن أنا قوس كردن إن ما أنتوا قبل كنا بتجري هاي واحد بعتها أو شقاقوين أو قبل كان هبي رأيت كتير أنا تشرين إن وذا شغلنا قرانكي عبد بلا وحن فيلا يا دليل هذا نوري inay nasiib badan u leeyihiin inay haystaan cid ay ku daydaan oo gobolkan ama u dhalatay ama ku dhalatay waxa weeyaan giftin iyo ragii wax tababari jiray ee gobolkan ay u dhasheen oo tababarihii madbacadu gobolkan u dhashay giftin Cabdi Bilana waa wada garanaysaan waxaad leedihiin cid ku dayataan ciyaaru waxay ka yihiin dawlad waxyaabood saddex waxyaabood maanta kuwa ka yihiin qabyaalada daway ka yihiin oo inamada wada ciyaaraya qabyaalad kuma wada ciyaaraan saaxiib bay ku wada ciyaaraan group bay ku wada ciyaaraan waxa weeyaan waxa u tal ah waxa u qabiila inta la ciyaarta mar labaad waxay dawo ka yihiin waxa la yiraahdo balwadaha iyo mashaakilaadka dadka bariinsaday inanku hadduu kubadda ciyaarayo waxa weeyaan jir caafimaad qaba iyo aqli caafimaad qaba ku jira
gudoomiyaha golaha wakiilada Jumhuuriyadda Soomaaliland Mudane Baashe Maxamed Cadde ayaa halkaasi ku wareejiyay agabkii isduwaa wasaaradda isboortiska isagoo kula dardaarmay in sida ugu dhaqsaha badan leh koobkaasi bisha Ramadaan ku ka qabsoomo gobolka Sool gaar ahaan garoonka Cabdi Bilaa Cabdi waxaan kugu wareejinayaa 10 race iyo kabahoodii oo isku dhameystiran oo iyo koobkii oo ninka ganacsatada aynu aad iyo aad ugu mahadcelinayno iyo Cabdiqaadir oo dhalinyaro cuslaatay ah oo isagu dhalinyaradu ka tirsan yahay isaga noo qaabilsan wixii dhalinyaro isaga noogu yar waxba buuraad saaragina marka isaga noo qaabilsan isaga aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa aad buu wuxuu la shaqeeyaa dhalinyarada meel jooga halkiisa haduu joogo berbera haduu joogo dhalinyaradu la shaqeeyaan Waftigii isugu jira saddexda gol qaran ee ka dhisan Jumhuuriyadda Soomaaliland ayaa u jooga magaalada Laascaanood sida ay kor ugu qaadi lahaayeen dhanka nabadgelyada horumarka waxbarashada caafimaadka iyo waliba dhanka sportiska waa Barkad Cumar Axmed warbaahinta qaranka Jumhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood